hey! I'm sorry, guys. waxaa isagoo xanaaqsan ka soo kacay kursigiisa madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron kaas oo ku xanaaqsan dad Kenyan ah. haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada nagu soo biir Facebook iyo YouTube mahadsanid. madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa uu booqasho ku tagay wadamada Afrika, xilligan waxa uu ku sugan yahay magaalada Nairobi oo ah caasimadda dalka Kenya. balse baraha bulshada waxaa soo galay muuqaalo la jarjaray kuwaas oo Afrikaantu ay ka falcelinayaan iyagoo xanaaqsan, qaar kommentiyada wax ku qorayaan, kuwana ay muuqaalo ka soo sameeyeen. sheekada oo dhami waxay ka soo bilaabatay madaxweynaha Faransiiska iyo madaxweynaha dalka Kenya William Ruto, labadaba waxaa laga casuumay xaflad ay ku qalin jabinayeen arday Kenyan ah kuwaas oo ahaa kuwa dhameystay waxbarashadooda. xafladan oo ahayd mid si aad iyo aad loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay dad aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin madaxdan, balse dadka Afrikaanka inta badanba waxaa lagu yaqaanaa oo ay ku jiraan Soomaalidu in markii meel ay isugu yimaadaan dad aad u tiro badan oo qof hadlayo ama qof uu khudbad jeedinayo in dadka qaar ay sameeyaan buuq, kuwana ay sheekaystaan. balse ninkan Faransiiska ah ama madaxweynaha dalka Faransiiska ay waxani ma ahan wax uu horay u yaqaanay, waayo waxa uu ku soo koray ama dhaqamadooda u yaqaana dadka reer galbeedka ah iyo dadka Yurubiyaanka ah oo ah dad markii qof uu hadlayo qofkaas inta uu ka dhameysanayo suga oo aanan buuqinin oo qofkaas khudbadiisa ka suga inta uu ka dhameysanayo. balse waxa uu la yaabay markii uu hoolka soo galay dadkii oo dhan oo xafladda fadhiyay oo dad stage-ka ay saaran yihiin oo loo khudbaynayo, qaar ay la hadlayaan dadka, aysan jirin cid dhageysanayda, qofka kale uu la sheekeysanaya dadka meesha fadhiya. intaas kadib Emmanuel Macron go'aan ayuu gaaray oo kursigiisiiba waa uu sii fadhin waayay oo stage-ka ayuu soo istaagay iyada oo looga wicinin oo stage-ka ay dad kala saaran yihiin oo ay makarafanada haystaan. inta uu u yimid oo makarafankii qaatay ayuu waxa uu ku yiri dadkiinan waa dadka meeshan saaran waxay u taagan yihiin inay idinka idin qudbeeyaan ee ma ahan idinku inaad meesha ka buuqdaan oo buuqiina anagu aan maqli weynaba dadka khudbadda jeedinaya. tanina anshax ma ahan, wax dadka lagu yaqaanana ma ahan ee khudbadda dhageysta. meeshan waxa u joogtaan waa inaad khudbaddan dhageysataan la idinkaga wacay. haddii aad sheekaysanaydaan banaanka u baxo, banaanka ku sheekaysta haddii ay idin dhibayso khudbaddan, laakiin meeshan ma ahan meel loogu talagalay in lagu sheekaysto ee dhageysta dadka wax idiin soo jeedinaya. Hey! I'm sorry, guys. Besides, destroy our environment, open air burning, air pollution, and our beaches are dirty. So then... Already? You're not waiting your turn. I will make order. Excuse me, everybody. Hey! I'm sorry, guys. But it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise. So this is a total lack of respect. So I suggest, if you want to have bilaterals or speak about somebody else, something else, you have bilateral rooms or you go outside. If you want to stay here, we listen to the people. And we play in the same game. Okay? Thank you. And this, ladies and gentlemen, is called leadership.